Assalaamu calaykum. Doorashadu waa waxa kaliya ee kuu suurtagelinaya inaad u tartanto xilka ugu sarreeya dalkaaga ama dalka aad baasaboorkiisa haysato. Doorashadu waxaa bilaabay Giriigii iyo Roomaankii hore ee casriyadii dhexe. Waxaa adeegsan jiray boqorada Roomaanka iyo madaxda kaniisadda, sida ka muuqata lacagtii Roomaankii hore. Dalka Hindiya, casrigii Vedic ayaa hogaamiyayaasha Raja waxaa soo dooran jiray Gana, oo ahaa urur qabiileedka Raja. Asal ahaan waa dabaqada dagaalyahanada oo loo yaqaanay Kshatriya Varna. Kadib ayaa waxaas lagu ridayay dhari loona dhiibay boqorkoodii Gobali. Doorashada casrigan waxaa Yurub iyo Mareykanka ay bilaabeen qarnigii 17aad, waxaana gacanta ku hayay dadka dabaqada sare, gaar ahaan dadka leh dhul beereedka. Muddo kadib, waxaa batay doorashooyinkii loo yaqaanay show election oo ku dhisneyd kalitalisnimo, mana loo ogoleen mucaarad. Codeyntu keliyana waxay ahayd haa, sida tii uu sameeyey kacaankii Soomaaliyeed oo la ogaa qofka la dooranayo, taasoo asigana loo yaqaano predetermined election. Marmarna waxaa dhaco mid loo yaqaano backfire, oo ah qofkii loogu shakiyaa inuu guuleysanayo loogu shubto codka, ama nooca loo yaqaano subversional candidate, oo asigana ah in la cadaadiyo ama la xiro musharaxa si uusan u guuleysanin. Aad ayay u fara badan yihiin noocyada doorashooyinka, waxaana ka mid ah plurality system, majority system, proportional system, mixed system, additional feature system, primary system, indicate system, iyo kuwo kale oo badan. Meelaha la isku khiyaano doorashooyinka waxaa ka mid ah guddiga doorashooyinka, waqtiga doorashooyinka dhacayo, goobta doorashada, yaa waxa dooranayo, yaa la dooranayaa, yaa codka tirinayo, yaa ansixinayo, sidee loo tirinayaa, qarashka la oggol yahay in doorashada lagu baxsho, yaa leh qarashka doorashooyinka lagu bixinayo, iyo kuwo kale oo aad u badan. Joseph Stalin, taliyihii Midoogii Sofiyeed, wuxuu yidhi muhiim ma aha tirada codadka ee waxaa muhiim ah cidda tirinaysa iyo cidda qabanqaabinaysa doorashadaasi. Oo micnaheedu tahay labadaas ayaa wax kasta bedeli kara. Badanaa doorashooyinka aan cadaaladda ku dhicin waxay keenaan kalsooni darro, xukun daciif ah oo ugu dambeyntii ku dhammaada afgembi ciidan iyo kacdoon shacab. Sida Soomaalidii 1969kii in uu ku dhashay kacaankaasi sababo uu ahaa doorashooyinka oo lagu shubtay, taas oo fursad siisay ciidamada, iyo in la isku haystay kuraasta qaar oo qaarkood dacwad ka tilay. Waxaa jiray habab badan oo cadaalad ah oo Islaamka isku dooran jireen, balse maanta Soomaalida iyo wadamada kale ee Islaamka ma isticmaalaan. Barnaamijkeena maanta intaas ayuu ku egyahay. Assalaamu calaykum.